magacaygu waa Saciid Maxamed Saciid su'aasha aan doonayo inaan sheekha weydiiyo waxa weeye hijroodka dal aan muslim ahayn maxay diinta islaamku qabtaa inuu qofka u shaqo doonto alxamdulillah waxay ku xiran tahay wadanka uu tagayo iyo xaaladda diintiisa la soo darsaysay ku xiran tahay qofku wadanka uu tagayo qof diintiisa iyo aqeedadiisa muujisan kara haduu yahay kufriga iyo baatilka inuu bari ka yahayna cadaysan kara oo wuxuu qaba sheegan kara haduu yahay oo culimadu yiraahdaan diintiisa uu daahirsan karo asalku way banaanta hadaan wax kale oo dhac ka dhalanayo marka isaga la xiriiro dib ka weyn uusan jirin asalka ibaaxay noqonaysa inuu aado ama uu joogo haddii aynu diintiisa uusan sheegan karin meel muslim diintiisa uu sheegan kara uusan ku u joogo ama dhaqanka iyo qawaaniinta ka jirta uu ku fasaadayo diinta waa sheegan kartaa laakiin khayr badanna meesha kala kulmaysid xumihiina ciidu ka batay badweyn baa ku qaadaysa ama qofka aad geynaysa waaba ilmo caruur iyo dad yaryar iyo makasa oo ku lumi kara taasna ma banaana min baab dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalb al masalih mushkilada ka hortageeda mudan in la horeysiyo inta waxba la raadinaya Soomaalidu waxay yiraahdaan khayr wax kama dhibe sharu tookay tayiraadaan oo kale tawaye billahi tawfiiq